waxaa jirta maanta la yiraahdo iyadana maqsuud waaw maansada maqsuud magaca ay wadato ee maqsuud anigu iga gaday ka gaday soomahan aniga laftigeyga magaceeda marka soo qaaday aan ku farxay koos ma soo qanacsanaan ku jirto maqsuud waa de qanacsanaan marka maansada maqsuud waxay ka hadlaysaa waxa jirta ma ogtahay dad ama gabar wiil daneynaysa ama wiil gabar daneynaya haddana sida uu daneynaya aan u muujinaynin ama waqti gelinaynin ama adiga de sida loogu baahnaa inuu juhdi u geliyo qofka aan u gelinaynin bari ka maalin marka qofkii uu sameeyo nolol ama qof kale oo ka wanaagsan isaga ama iyada ka wanaagsan oo qofkii helo go'aanayo oo leh maxaa iga tagtay maxaa iga weysay maxaa marka jawaab bay waxay u tahay qof kasta oo de waqti u heli waayo lamaanihiisa qof kasta oo de lamaanihiisa qancin kari waaye oo haddana marka qofkii uu ka tagay su'aal ay ku taaganto sababta maxay tahay marka waa bal idan noodulmar maansada kooban waxay leedahay markaad labalabeynaysay mid baa ku adkaystay oo yiri meel kale ma aado adigoon baa ii macaan intaad mashquulsanayd mid baa muhiim iga dhigto yiri adaa macneeya nolosha meeshaan ka jooga intaad iga masuugsanayd mid baa yiri hoo walaal maareeyo adiga hay intaad meermeerinaysay mid baa yiri kaalayo maantaba isku kay halay anaa midigtaada jooga masabkaad qari la'ay miisaankaan ani lahaa balaayiin jeer la sheeg oo maamuus gaarana la siiyey waaba la ixtiraamay wixii arrin waa helay waa maqsuud naftu waa maqsuud wiilkii aba gabadhii arabana waa helay dabcan saas ay leedahay hadda ka hadashaa meesha ma yaalan saas oo agta waana sida ay tahay soomaha marka ka aan mid ku darsada dadka marka hore aanan dadkooda ixtiraamin ama aanan ahmiyad gaar ah siinin hadhow marka laga tago waxa calaacan walaalay ama calaacan walaalo soomaha waa mashquulsanahay dad badan oo mashquulsanayd adiga mashquulkaaga iska sii waa mashquulsan oo hool leh oo dani ay ka dhacdo ba haddana qofkaas ka dulqaaday dabcan qof walba horta ma ogtahay yani qof waqti weysan ma jiro adduunka ilaa wuxuu waqti u hayaa qof kasta waqti u hayaa laakiin muxuu waqti u hayaa wax muhiim ku ah waqti u hayaa marka maanta aniga hadaa qof waqti siin waayo it means qofkaas ahmiyad uma hayo haddaan waqti siiyo oo waqti aan geliyo waxay la macno tahay dee anuu waan daneynaya qofka dabcan meermeerkaa la iska daayo marka intaas ku xiray intaad meermeerinaysay waa tan aniga aan leeyahay intaad meermeerinaysay mid baa yiri kaalayo maantaba isku kay halay anaa midigtaada jooga intaad mashquulsanayd waxaan idhi yaa mid baa muhiim iga dhigto yaa waqtigaad ii weysadee mid kale mid kale ka heray dabcan